kulan wacan wanaagsan kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka qaybtan waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisada soo korortay ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan. Madaxweynaha Mareykanka oo isaga cararay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga xilli uu ka baqdin qabay in ay weerar ku soo qaado Iiraan. qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu idinkula wadaagi doonaa barnaamijkeena. Kusoo dhawaada daawadayaal, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad nala joogteen aad baad u mahadsan tahay. aynu ku bilowno. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku sugnaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga halkaasi oo kaga qayb galayay shirkii u dhaxeeyay madaxda NATO ayaa xalay si lama filaan ah waxa uu isaga cararay magaalada Ankara isaga oo qaatay diyaarad aan ahayn tii ku yimid. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markii uu Ankara soo gaarayay ku yimid diyaarad ay hadiyad ahaan u siisay dowladda wadanka Qatar ayaa bedelay diyaaradaasi oo waxa uu ku safray diyaaradda ay ku safraan madaxweynayaasha Mareykanka ee la yiraahdo Air Force One, taasi oo inta badan u samaysan nidaamyada difaaca inay ka hortagto weerarada gantaalada iyo waliba diyaaradaha dagaalka. Donald Trump oo saarnaa diyaaradda Air Force One ayaa waxa ay wariyaashu weydiiyeen haddii uu ka baqdin qabo in ay weeraraan Iiraan. waxa uu ku jawaabay madaxda Iiraan ballan ma leh, waana macquul inay soo weeraraan, waxayna go'aan ku gaareen inay dilaan. Donald Trump ayaa si lama filaan ah isaga baxay dalka Turkiga isaga oo ku duuliyay diyaaraddaasi Air Force One oo ay galbinayeen diyaaradaha casriga ee Mareykanka ee F-35 iyo waliba diyaarado kale oo dhowr ah. Donald Trump oo maalin ka hor soo gaaray magaalada Ankara ayaa isaga oo ku sugan magaalada Ankara waxay ciidamada Mareykanku weerar ku qaadeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Iiraan, taasi oo sabtay in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay iyaguna beegsadaan saldhigyada gobolka ee uu Mareykanku ku leeyahay, gaar ahaan dalalka Carabta, Kuwait iyo Bahrain. xalay Mareykanku waxa uu mar kale weeraro culculus ku qaaday magaalooyin dhaca xeebaha dalka Iiraan, kuwaasi oo kala ah Bandar Abbas iyo waliba magaalooyin dhowr ah oo laga kontaroolo marin biyoodka Hormuz. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaana la sheegay in boqolaal gantaalo ay tan iyo xalay ku weerareen saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay dalal kala ah Kuwait, Bahrain. warar aan la xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay sidoo kale weerareen saldhigga uu Mareykanku ku leeyahay dalka Qatar, inkastoo aysan dowladda Qatar si rasmi ah u faahfaahin weerar kaga yimid dhinaca Iiraan. si kastaba madaxweynaha Iiraan iyo waliba madaxda sare oo Iiraan oo dhowaan la hadlaysay warbaahinta gudaha Iiraan ayaa sheegay in Donald Trump uu weli wado hanjabaadihiisa iyo hadaladiisa adag ee ka dhan ah Iiraan, taasi oo ay sheegeen in aysan waxba ka qaadayn. Donald Trump mar uu saarnaa diyaaradiisa Air Force One isagoo ku sii jeeday Mareykanka waxa uu sheegay in uu dhammaaday heshiiskii ay la gali lahaayeen Iiraan, isla markaana ay diyaar u yihiin haatan inay si adag u weeraraan Iiraan. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi oo bartiisa X hore loo oran jiray Twitter fariintaasi kaga jawaabayay waxa uu yiri aflagaado kagama jawaabno aflagaado ee waxaan kaga jawaabnaa ficil, taasi oo u dhigneyd hadal adag oo guud ahaanba la aaminsan yahay inuu soo afjaray afgaradkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan ee lagu magacaabi jiray MAW, kaasi oo ahaa mid loogu talagalay in heshiis rasmi ah ay gaaraan dhinacyadan. dhinaca kalena ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa shaaciyay in saacadihii la soo dhaafay ay weeraro isxigxiga oo baaxad leh ay ku bartilmaameedsadeen saldhigyada Mareykanka ee ku fidsan gobolka Bariga Dhexe. xiisada soo cusboonaatay ee Mareykanka iyo Iiraan ayaa noqonaysa tii ugu weyneyd tan iyo markii la gaaray is-afgaradka. Mareykanka ayaa Iiraan ku eedeeyay in ay weerartay maraakiib ganacsi oo marayay marin biyoodka Hormuz, kuwaasi oo ay ku sheegeen in Iiraan ay ku jabisay xabad joojintii u dhaxaysay dhinacyada. labada dhinac ayaa haatan adeegsanaya hadallo adag oo ay isu marinayaan dhinaca warbaahinta, taasi oo sii kala fogeyn karta in dhinacyadu ay soo afjaraan xiisada soo cusboonaatay ee u dhaxaysa labada dhinac. dhanka kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo mar la hadlayay warbaahinta isla markaana ka hadlayay xiisada soo cusboonaatay ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa si lama filaan ah waxa uu Iiraan ugu qalday Jabaanka isaga oo yiri Jamhuuriyadda Islaamiga ee Jabaan waxa ay 111 gantaal ku weerareen markabkeena xambaara diyaaradaha, taasi oo la yiri Donald Trump waxa uu inta badan ku qalqalay xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo waliba Iiraan isaga oo xitaa isu qalday laba dal oo aan shaqaba isku lahayn. hadalka madaxweynaha Mareykanka oo si weyn loogu faafiyay baraha bulshada ayaa lagu tilmaamay in Donald Trump uu ka muuqdo qalqal weyn oo la xiriira xiisada soo cusboonaatay ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan.
dhinaca kalena Israa'iil ayaa sheegtay inay ku jirto heegan buuxda iyaga oo saraakiil hore oo ka tirsanaa maamulka Israa'iil ay sheegeen in haddii Maraykanku uu si adag u weeraro Iiraan ay macquul tahay inay Iiraanna soo weerarto Israa'iil isla markaana ay duqeyso magaalooyin ku yaala Israa'iil. guud ahaan xiisadda cusub ee kasoo cusboonaatay gobolka Bariga Dhexe ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay guud ahaan ganacsiga caalamka iyada oo durbaba ay sare u kacday qiimaha saliidda caalamka ilaa 5% ayaa shalay la sheegay inay sare u kacday qiimaha saliidda caalamka xilli la filayo inuu si rasmi ah u xirmo maranbiyoodka Hormuz haddii ay sii socdaan weerarada ka dhanka ah Iiraan ee uu Maraykanku ku qaadayo magaalooyin dhaca Iiraan. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sidoo kale ku hanjabay inuu qabsanayo jasiiradaha ku yaala maranbiyoodka Hormuz ee ay gacanta ku hayso dowladda Iiraan. dowladda Iiraan dhankeeda waxa ay sheegtay in tallaabo kasta oo loo soo qaaday dhinaceeda ay diyaar u tahay inay ka jawaabto ka hor inta aan la gaarin is-afgaradka ee uu socday dagaalkii cuslaa ee u dhexeeyay dhinacyadan. Donald Trump ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu ku hanjabay inuu diyaar u yahay inuu qabsado jasiiradaha muhiimka ee ku yaala maranbiyoodka Hormuz ee ay si rasmi ah gacanta uga hayaan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan kuwaasi oo ay ka maamulaan maranbiyoodkan muhiimka u ah caalamka oo dhan isla markaana ay marto 20% saliidda caalamka. guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. barnaamijkeena kan xiga intaan ku kulmayno nabadgelyo.